السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasha iyo dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow ku soo dhowaada kanaalka cusub ee Janaale Media. Kanaalkan wuxuu idiin soo dayn doonaa barnaamijyo fara badan oo ku saabsan hanuuninta, wax sheega iyo baraarujinta dadweynaha. Marka barnaamijka ugu horeeya waxaan ku soo qaadan doonaa arrinta ku saabsan qorshahagaha loo sameeyo magaalooyinka. Sababtoo ah waxaan ognahay dhibaato weyn oo haysata bulshada Soomaaliyeed inay tahay in magaalooyinka Soomaalidu ay aad u foolxun yihiin oo aad u qaabdaran yihiin marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee adduunka. Markaasna Soomaalidu ay u baahan yihiin inay ilbaxaan oo magaalooyinka ay iska qurxiyaan. Marka laga hadlayo qorshahage muxuu yahay? Qorshahage waxaa weeye qorshe loogu talagalay magaalooyinka in lagu naqshadeeyo oo lagu horumariyo oo wax lagaga qabto dhibaatooyinka gaadiidka, kaabayaasha dhaqaalaha, sida dhulka loo qaybsanayo, sida kor loogu qaadayo caafimaadka iyo farxadda dadka magaalada degan, iyo sida ugu habboon ee dhulka magaalada loo qaybinayo. Maxaa yeelay magaalooyinka haddii qorshahage loo samayn waayo waxay arrintaasi keeni kartaa in magaalooyinku ay noqdaan isku raran oo ay noqdaan magaalooyin foolxun. Haddaba qorshahagayaashu waa dhowr nooc. Mid waxaa loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha economic development, midna waxaa loogu talagalay naqshadaynta magaalada iyo sidii dhulka magaalada loogu kala qaybin lahaa dhul la degan yahay, dhul warshado leh, dhul dalxiisa, dhul kaabayaasha dhaqaalaha laga sameeyo. Sidoo kale waxaa jira qorshahagaha loogu talagalay horumarinta bulshada, sida in la tiro koobo dadka magaalada degan oo markaasi iskuulo loo dhiso magaalada iyo garoomo ciyaareed iyo goobo dadku ay ku nastaan. Marka taasna waxaa la yidhahdaa social development planning baa la yidhahdaa. Marka dhammaan waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in loo sameeyo qorshahage ku habboon. Haddaba maxay yihiin dhibaatooyinka ka dhasha marka magaalada aan loo samaynin qorshahage? Dhibaatooyinka ka dhasha marka magaalada aan qorshahage loo samaynin way fara badan yihiin. Waxaana ka mid ah marka dad fara badan ay magaalada soo degaan oo magaaladana ay u soo degaan si habqan ah oo jaantaar rogan ah oo bilaa nidaam ah oo wax kontroolaya ayna jirin. Markaasi dadku waxay magaalada u degaan si ciriiri ah. Meel kasta oo bannaan qof ayaa degaya. Taasina waxay keentaa in magaaladu ay noqoto ciriiri, ayna markaasi ka dhashaan xaafado oo basiibo ah oo isku raran ah. Arrinta keenta in magaalooyinka Soomaalidu badanaa ay noqdaan magaalooyin isku raran ah waxaa weeye laba midkood. Waa marka koowaad ee magaalooyinka Soomaalida badankoodu waxay ka soo dhasheen tuulo yar oo markii hore dad yari ay degeen, kadibna dad fara badan ay soo degeen iyada oo magaalada aan dib u habayn lagu samaynin. Sidaana ay tuuladii magaalo weyn ku noqotay, laakiin magaaladii waxay noqonaysaa magaalo foolxun oo qaab daran. Waana sida ay ku dhasheen badi magaalooyinka Soomaalida sida Kismaayo, Beledweyne, Jowhar, Baydhaba. Magaalooyinkaas oo dhan waxay ku dhasheen markii hore magaalo yar bay ahaayeen, qorshahago looma samaynin, haddana magaaladii way weynaatay, saas ayay ku timid. Waxaa kale oo dhacda in hal mar dad fara badan ay magaalada soo degaan. Markaasna waxay dhacdaa tusaale ahaan marka ay abaaro dhacaan, abaaraha waxaa ku soo barakaca dad fara badan. Dadkaasi marka waxay u soo guuraan
magaalooyinka oo ay dul degaan si ay u helaan nolol ka wanaagsan toodii hore ama si ay uga baxaan xaaladda qaxootinimada ah. dadka faraha badan ee soo degay waxay degaan kaama barakacayaal ah, dabadeedna kaamkaas ayaa marka dambe waxay iska noqdaan magaalo. tusaale ahaan xaafadda dalxiiska loo yaqaano ee magaalada Kismaayo, xaafaddaas oo asal ahaan ka dhalatay dad fara badan oo soo barakacay oo halkaas degay, oo markii dambena magaaladii ay ku fiday, oo markii dambena xaafaddii ay noqotay xaafad isku raran ah oo doqoshyo ah oo cidhiidhi badan oo dad aad u fara badanna ay degan yihiin. arrimahaas marka waxay keenaan in dawladdu ay xal u heli weydo ama ay ku adkaato sidii xal loogu samayn lahaa in dadka faraha badan ee magaalada soo degay iyo magaalada u horumartay si habqan ah oo isku raran ah si wax looga qabto. taas oo run ahaantii u baahan dadaal badan iyo lacag fara badan iyo rabitaan iyo go'aan adag oo ay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah iyo maamulada degmooyinka Soomaalidu ay ka qabtaan magaalooyinkooda isku raranta ah si magaalooyinka loo qurxiyo. haddaba maxaa ka dhasha magaalada marka ay noqoto magaalo isku raran ah oo aan loo samaynin nidaamka master plan-ka? dhibaatooyinka ka dhasha waxaa ka mid ah xaafadaha magaalada oo noqda kuwa isku raran ah. dhibaatada labaadna waxaa weeye waxaa adkaata in magaaladii dib habeyn lagu sameeyo, in magaaladii waddooyin loo bixiyo iyo jidad ay dadku maraan. waxaa kaloo dhibaato la kulma caafimaadka dadka. magaalo cidhiidhi ah oo isku raran ah waxaa adkaanaysaa in nidaamka bulaacadaha magaalada loo sameeyo. taasina waxay keenaysaa in magaalada ay noqoto magaalo uraysa oo qashinka uu ka batay oo musqulaha aanay lahayn, nidaamka bulaacadaha ee casriga ah ee adduunka aanay lahayn. markaa waxaa ka dhasha caafimaad darro, nidaam xumo, qurunka oo bata. taasina waxay keentaa cudurrada oo bata. waxaa kale oo dhibaatooyinka ka mid ah in haddii la doonayo magaalada in horumarin lagu sameeyo oo matalan garoomo ciyaareed loo dhiso ama waddooyinka la waaweyneeyo ama xaafadaha la isku raro ama jidad loo sameeyo ama barxado loo sameeyo, waxaas dhan way adkaanayaan. maxaa yeelay magaalada dhan waxay noqonaysaa magaalo cidhiidhi ah oo xataa gaadiidku aanay dhex mari karin, oo xataa dadkuna aanay haysanin meel ay maraan. waxaa kale oo dhibaato ah sidii loogu samayn lahaa nidaamka bulaacadaha ee magaalada, sababta oo ah ma jirto meel la mariyo tuubooyinkii bulaacadaha qaadi lahaa iyo sidoo kale tuubooyinkii gaaska la shito qaadi lahaa, meelihii la marin lahaa xadhkaha korontada iyo sidoo kale meelihii la marin lahaa bulaacadaha iyo biyaha roobka. taasoo dhan waxay keenaysaa in magaaladii ay sidaas ahaato oo isku raran ay ahaato. sidoo kale waxaa dhalata dhibaato ah in uu dab ka kaco, maadaama magaaladu ay tahay cidhiidhi in dab uu dhasho. dabka marka uu kacana ay adkaato dabka in la demin waayo. waana dhibaatada ugu weyn ee maanta haysata magaalooyin badan oo Soomaaliyeed oo maalin kasta la maqlayo dab kacay oo hanti fara badan oo malaayiin dollar gaaraysa ay ku burburto. sababtuna waxaa weeye nidaamka magaalooyinka ee Soomaalida ayaa gebi ahaantiisba khaldan. ujeedooyinka loo sameeyo master plan-ka waxaa ka mid ah in wax laga qabto dhibaatooyinka cidhiidhiga iyo isku raranta ee magaalooyinka, iyo sidoo kale in dadka loo sameeyo qorshe ay ku kala degayaan xaafadaha oo meelaha dadku ku badan yahay dadka laga qaado lana dejiyo meelo uu dadku ku yar yahay, iyada oo marba la eegayo meelaha ugu habboon deegaanka, meelaha ku habboon warshadaha iyo meelaha ku habboon beeraha. sidoo kale waxaa loo sameeyaa nidaamka qorshahagaha in magaaladu ay yeelato waddooyin ay dadku maraan, waddooyin ay gaadiidku maraan, barxado dadku ay ku nastaan, beero dadku ay ku nastaan xilliyada firaaqada, garoomo ciyaareed oo ciyaalka magaaladu ay ku soo ciyaaraan marka ay waqtiga hayaan. sidoo kale nidaamka qorshahagaha waxaa loo sameeyaa in sida ugu habboon loo qaybiyo dhulka. marka nidaamka qorshahagaha la samaynayo waxaa xoogga la saaraa
sidii loo horumarin lahaa nidaamka isgaadhsiinta sida waddooyinka iyo jidadka ay dadka baabuurta ay maraan. Hadda waxay Soomaalidu taqaanaa hal waddo oo dadka iyo duunyada iyo baabuurtu ay wada maraan. Adduunka sidaas lagama yaqaano. Adduunka baabuurtu wadday leeyihiin. Baaskiilada iyo mootooyinkuna waddo kaley leeyihiin. dadka lugaynayana wadday leeyihiin. Waddooyinkana waxaa loo sameeyaa ballac weyn oo waxaa habboon waddo kasta ballaceeda in la xadido si waddadaasi aanay u soo xidhmin oo dadku ay u garanayaan waddo kasta ballaceeda intuu yahay. Waxaa kale oo muhiim ah marka la samaynayo nidaamka qorshahagaha in xoogga la saaro meelihii la marin lahaa adeegyada bulshada ay u baahan tahay, sida meelihii la marin lahaa tuubooyinka qaada bulaacadaha iyo biyaha wasakhda ah ee roobka oo kale, iyo meelihii la marin lahaa biyaha la cabbayo, iyo meelihii la marin lahaa tuubooyinka gaaska iyo xadhkaha korontada. Sidoo kale waxaa habboon in magaalooyinka loogu talagalo in laga qabto dhibaatooyinka mustaqbalka iman doona. oo tusaale ahaan adduunyada hadda badankeeda magaalooyinka gudahooda waxaa la isticmaalaa tareenno. Soomaalidu marka waxaa habboon inay ku talagalaan meelihii waddooyinka tareennadu ay mari lahaayeen iyo meelihii laga samayn lahaa boosteejooyinka tareennadu ay ka baxaan in haddaba la sii diyaariyo. Magaalo kasta waa inay qorshaheeda ku darsataa xaggeebay noqon doonaan jidadka tareennadu ay mari doonaan, iyo magaalo walba meeqa boosteejo ayay yeelan doontaa waddooyinkaasi ay tareennadu marayaan. Waa waxyaabaha ka maqan dadka Soomaaliyeed hadda. Sidoo kalena magaalooyinka Soomaalida ma laha baarkinada baabuurta la dhigto. Waxaan u malaynayaa Muqdisho mooyaane magaalooyinka kale badanaa dadku maba yaqaanaan meelo baarkin ah oo baabuurta la dhigto. Sababtoo ah dadku hadda way sii horumarayaan, wayna sii tira badanayaan, baabuurtuna way sii tira badanaysaa. Haddaba caqligal miyaa inaan baabuurtii loogu talagelin baarkinadii la dhigi lahaa? Tusaale ahaan hay-adaha dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee waaweyn iyo meelaha dadku ay ku nastaan dhammaantood waa in loogu talagalaa baarkinno baabuurta la dhigto. Sidoo kale magaalooyinka waa in loo sameeyaa beero waaweyn iyo kuwa yaryar oo dadku ay ku nastaan. Sababtoo ah Soomaalidu dhaqanba uma laha inay magaalooyinka loo sameeyo beero fara badan oo dadku ay ku nastaan. Sababtoo ah dadku guryaha kuma jiri karaan. Waxaa loo baahan yahay xilliyada galabihii ah, maalmaha fasaxa ah, maalmaha jimcada oo kale, dadku inay guriga ka soo bixi karaan oo ay ku kulmi karaan beero aan saa uga fogeyn ama beero waaweyn oo ka durugsan magaalada. Sidoo kale magaaladu waxay u baahan tahay in loo sameeyo dhul la qaylay oo dhirta la ilaaliyo. Taasi waxay keenaysaa boodhka faraha badan ee magaalooyinka soo gala in beerahaasi magaalada ay ka ilaaliyaan. Marka waxaa loo baahan yahay magaalo walba inay yeelato dhul la qayday oo magaalada lagu ilaaliyo oo beero leh. Taasi waxay kor u qaadaysaa caafimaadka magaalada iyo quruxda magaalada labadaba. Waxyaabaha loo baahan yahay marka la samaynayo nidaamka qorshahagaha waxaa ka mid ah in la taakoobo ama la ogaado qiyaasta tirada dadka degan magaalada qorshahagaha loo samaynayo, iyo in la qiyaaso xaaladda siyaasadeed iyo amni ee magaalada ka jirta. yacni in la ogaado dadka raalli ma ka yihiin nidaamka qorshahagaha ee la samaynayo oo dadku gacan ma ka geysanayaan. Sababta oo ah dad fara badan ayaa guryaha laga burburinayaa, dad fara badan baa guryahooda dhinac la jebinayaa. Marka dadkaasi waxaa la rabaa inay raalli noqdaan oo aysan u qaadanin in ayaga loola dan leeyahay si gaara, laakiin ninkii qorshahagahaasi uu ku soo hagaago inuu aqbalo oo uu banneeyo waddada oo qofkaasi uu burburiyo gurigiisa haddii waddo ay ku soo hagaagto. Marka xaaladda siyaasadda iyo amniga magaalada waa in lala socdaa marka la samaynayo nidaamka qorshahagaha. Waxaa kale oo muhiim ah
in la ilaaliyo dhulalka taariikhiga ah iyo dhulalka bilicda qurxoon leh sida magaalada Goobweyn oo kale ama xeebta Liido oo kale ama Isha Baydhabo oo kale. meelahaas oo kale waxaa la rabaa in si gaar ah loo ilaaliyo oo la qaydo oo dawladdu ay ilaaliso. marka sawirada loo baahan yahay marka nidaamka qorshahagaha la samaynayo waxaa ka mid ah in la helo khariidada magaalada iyo in la helo khariidad tilmaamaysa kala sarreynta magaalada, meelaha ay maraan xuduudaha xaafadaha iyo xuduudaha qaybaha dabiiciga ah ee magaalada, sida dhulka jooggiisu sarreeyo iyo dhulka jooggiisu hooseeyo. marka la sameeyo nidaamka qorshahagaha natiijadiisu maxay noqonaysaa? natiijadiisu waxay noqonaysaa magaaladu inay noqoto magaalo qurux badan oo bilic leh oo caafimaad leh oo bey'adeedu wanaagsan tahay oo lagu noolaan karo oo magaalooyinka adduunka u eg. saasay noqonaysaa. waxyaabaha muhiimka ah ee markaasi dhalanayana waxaa ka mid ah magaalooyinka oo yeelata waddooyin waaweyn iyo barxado waaweyn iyo garoomo iyo baarkino baabuurta la dhigto iyo dhul cagaar ah oo lagu nasto. waxyaabahaas oo dhan magaaladu inay yeelato ayaa loo baahan yahay. waxaa kale oo muhiim ah in magaaladu ay yeelato dhul kaymo ah iyo dhir qurux badan oo indhuhu ay ku doogsadaan. waxaa kale oo muhiim ah in hoos loo dhigo boodhka iyo dabaysha. si taa loo helana waa in la sameeyaa dhul beera ah, waana in magaalada lagu abuuraa dhir. marka waddooyinka waaweyn ee magaalada loo sameeyeyna waxay sahlaysaa in dadku ay isaga safraan xaafadaha kala duwan ee magaalada si dhib yar oo gaadiidkuna si dhib yar uu ku socdo. taasina waxay wax weyn ka qabanaysaa isu socodka iyo gaadiidka, waxayna markaasi keenaysaa in magaaladu ay isticmaasho basas iyo tareenno, taas oo hoos u dhigaysa waxyeellada bey'adda loo geysto marka qof waliba gaadhigiisa yarka ah uu ku dhaco oo uu ka haysto oo baabuurtuna qiiq fara badan magaalada ay ku sii daayaan. marka taas waxaa looga maarmi karaa in la isticmaalo gaadiidka dadweynaha. gaadiidka dadweynahana wuxuu u baahan yahay waddooyin waaweyn oo waasac ah oo ay ku socdaan. waxyaabaha loo baahan yahay in laga waantoobo ama laga taxadaro marka qorshahagaha magaalada la samaynayo waxaa ka mid ah in dadka aan qasab lagaga dhigin qorshahagaha ee dadka laga dhaadhiciyo in qorshahagaha uu iyaga dantooda yahay oo uu yahay dan guud oo dadka oo dhan khusaynaysa. waa in dadka sidaas laga dhaadhiciyo. waa in odayaasha waxgaradka ganacsatada magaalada degan arrintaasi ay qayb ka noqdaan si looga hortago in khilaaf iyo isku dhac uusan keenin qorshahagaha magaalada loo samaynayo. waana in nidaamka qorshahagaha markaas laga qaybgeliyaa dhammaan dadka ay khusayso oo dhan, waxa loo yaqaano stakeholders. waxaa kale oo muhiim ah in laga taxadaro in dhulka oo dhan aan laga dhigin magaalo. in la isku dayo in beerahaasi la daayo oo beeraha la abuurto waa haddii dhulkaasi la abuuranayo weeye. haddii kale magaalada waa lagu fidin karaa haddii dhul beereedka uusan ahayn dhul ay wax ka soo baxaan. marka muxaadaradan ku saabsan qorshahagaha waxaan ugu talagalay in aan qayb ka qaato sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga iyo aqoonta dadka Soomaaliyeed ee ku saabsan in magaalooyinka ay iska qurxiyaan. sababta oo ah waxaan ognahay maanta dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed ayaa qurba joog ah. dadkaasi markay qurbaha ka yimaadaan waxay ka yimaadaan magaalooyin qurqurux badan oo nadiifa oo aad looga shaqeeyey. dadkii markay Soomaaliya yimaadaan markay magaalada u soo galaan waxay markiiba la kulmayaan magaalo wada cidhiidhi ah, wada boodh leh, buuq badan, qurmuun, dhibaataysan. marka waxyaabahaas oo dhan waxaa loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay dhug u lahaadaan oo ay maskaxda ku qabtaan si arrimahaasi wax looga qaban lahaa. si markaasi dadka qurba joogta ah ee waddankoodii inay ku dalxiisaan u yimid oo carruurtoodii wata oo carruurtooduna ay doonayaan inay waddankii bartaan ayna u dhicin maalinta u horreysay ay yimaadaanba dadka inuusan niyad jab ku dhicin oo aysan nicin magaalada oo aysan la yaabin sida dadku ay u nool yihiin iyo qaab darrida magaaladu ay u taallo iyo qurunka iyo cidhiidhiga iyo wasakhda meel kasta taalla. marka waxaa loo baahan yahay Soomaaliya waa in fadhiga laga kacaa. dad fara badan oo Soomaaliyeed baa qurba jooga
dadkaasi markay waddanka imanayaan waa dalxiisayaal oo kale marka waxay u baahan yihiin inay arkaan على الأقل إن أي داودان دول قروح بدن أو نظيف أو أي كنا سن كران مركز تاسي waxay keenaysaa qurba joog fara badan inay wadanka yimaadaan markasta oo qurba joog wadanka ay yimaadaan de qurba joogtu lacag bay wataan wadanka lacag baa soo gelaysa marka qurba joogta ay lacag fara badan soo geliyaan wadanka dhaqaalihii dhannaaba dhaqaaqaya marka arrintaas iyada waa in dug loo lahaado waa in la isgaarsiiyaa muxaadaradan waa inay dhageystaan gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaasha gobolada wasaaradaha guriyeynta iyo hawlaha guud waa in arrinta fadhiga laga kacaa oo arrinta ay noqotaa mashruuc qaran oo ay Soomaalidu wax ka qabanayso waa mahadsantihiin